shirkaygan jaraa'id ee geedka hoostiisa qadiifaddu ii taallo waxaan halkaa ula imi arrin runtii igu abuurtay kalgacal badan aan isidhi maanta waxay geli doontaa tanu taariikh lama ilaawaana taasoo ah xilligii abaartii xumayda ina soo martay dadkii ka hayaamay Somaliland ee u hayaamay gobollada bari ama dawladda Puntland sidii dawladda Puntland madaxweynaheeda xukuumadda shacabka reer Puntland ay isu barbar taageen dadkii halkan ka guuray iyaguba abaartu haysatay run ahaantii waxaan la ilaawi karin waxaan uga hambalyeeynaa 100 jeer waxay adduunyada taariikhdu xusi doontaa sidii dawladda Puntland iyo shacabka reer Puntlandba ay isu garab taageen dadkii abaartu u geysay ee halkan ka guuray welina ay u wadaan iyadoo xitaa roobkii da'ay inay ku celiyaan fadhiisimadoodii waxaan u leenahay taariikhdu way xusi doontaa shacabka reer Puntland aad iyo aad baan ugu hambalyeeynaa dawladda Puntland iyo madaxweynaha Puntland aad iyo aad siduu isugu xil saaray dadkii soo guurtada ahaa ee abaartu waday ee ka hayaamay Somaliland siday isu barbar taageen waa mid aan marnaba la ilaawi doonin waa Soomaalinimada waa dadnimada waa dawladnimada Puntland aad iyo aad baan ugu hambalyeeynaa insha Allah waana aanu ogaan doonaa taa ay maanta yeeleen waa mid aanu abaalkeeda ka gudi doonaa xagga Ilaahayna abaalkeeda uu ka heli doonaa marka waxa weeye waa gobonnimo aan waligeed la ilaawi karin nayari adigu meel walba miyaad daba taagantaa may maxaad u socotay ma gabayadii may gabayada ma socon maxaad u socotay gabayada ma soconay waxaan u socday horta hadalkan meesha ku haysta waa hadal muhiim ah haye waxaan u socday aniguna inaan ka qayb qaadan waxaan u socday hambaliyaan u socday maanad ii hambalyeynaysaa maya ku hambalyeyn maayo iyadoo hambalyeynaysaa waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynay madaxweynaha dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya siduu ugu guntaday xilli abaareedkii shacabkiisa iyo shacabka Soomaaliland الله وارن والله وأجنتري حاجات كده وتأذو بيا دركتها الدنيا وحول ولا قد داونا يا الدنيا وراني وحول بنتي في وحول ولا قد داونا هو ذا كيسي هذيك حاجات كده جيستي الدنيا ما عندنا تيفيا كده وحول بقول صعنا مدحونا عبد محمود إلهي وحنو كعبرينا عمر ديري يا عافيمات يا براق يا بش أتكوارتنا هذيك يوم شعبك آمين هذا الواد ما صنتها واد ما هو حويه إن كاسون وانو أركينو مدحوينها سنة ريال جو بللي كقضيبان نوجين السجن وانو هم بلياننا نقولنا مدحوينها دولة بلدان يمام الكيسنا وانو هم بلياننا سيدا الشعب كهال كانوا سودويين قف ير أو وحلص عضباته وحلص عطا دعاء أنا والله قاقبلية صومات قرن آديات ما ذكر سلام آديات ما كوس وهذا gabayadiina waynu ka wada hadli doonaa gabayadiina wallahi qof weyn baata halka yaa igu soo ka sheegay halkan dee waa la iska ogay wax walba la socday inta adeer ma jibi aris baad siyaasata jibi aris miyaad leedahay iyo waxa adigu ma jibi aad garan maayo tan bacadna ku soo heshay ilaahay waaye kowle maanta xilligii abaartee dhacay wax badan ayaa laga faa'iiday waxa la kala ogaaday dadka dawladaha madaxweynayaasha mid waliba sidii wuxuu qabtay maanta dadku maalinta ugu baahida badnaa buu ahaa assalaamu calaykum assalaam wariyahay war saaxiibo warniyo inaad si tirayd markaad qabarayso wad la soo dhuunaysaa wariyahay xagaad ka socotay war xagaraan ka imiye inaad ma si tirayd bad maanta la soo dhuumay inaad ma waxaan maanta ahay hambalyo aan u dirayo dawladda Puntland iyo shacabkeedu siday reerkii shacabkii Somaliland abaartu geysay ee u guuray ay u soo dhaweeyeen ayaan ka hadlaayay inantana waxay ka hadashay
madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya sidii uu ugu guntaday shacabkiisa iyo shacabka reer Somaliland ee maanta biyo iyo baad aan kala go' lahayn uu la daba taagnaa runtii waa madaxweynayaasha Allah soo dhanaay aan sidii in yar buu gurigiisa seexday in yar aan waan arkaynay waa la arkay ana inaadan waxaan kugu kordhinaya ummadda reer Puntland taariikhdoodu waa lama ilaawaan haye gobonnimadooduna waa lama ilaawaan haye waa mid qoran oo meel ku tiirsan haye ummadda Soomaaliyeed way ugu gobsan yihiin waay waa taariikh taalo qoran oo hore haye hadday suldaan tahay hadday malaaq tahay hadday tahay maxaa idhaahdayay dee wax allaale wixii aynu dhaqan lahayn Soomaali waa reerka ugu horreeyay الله يا كلا دمبين waa reerka ugu horreeyay weey ما شاء الله halkanaad ka arkaysaa gobonnimadani waa soo yaal waa lafta warniyo ninku suuya hadaba heedhe dadku maalinba waxbay ogaanayaan maanta waxa la ogaaday waxa ay yihiin iyo gobonnimada ay yihiin iyagoo iyaguba abaartu haysay ayay ilaa iyo hadoo roobki da'ay ayay leeyihiin dadkii waa inaynu raraayo ku celinaa fadhiisimadoodii mar haddii roobki da'ay ilaa maantina saasay u hayeen way yeelayaan sacabaday ku hayeen mooyaane waxaana la yidhi waxa la kala baxaa ma maqashay ragna wuxuu ku kala gaas baxaa gabi colaade markab ama abaari dhacdo ama colaadi dhacdo ayaa la sugaadaa nin waliba wuxuu yahay wararta inaad bagaadii soo raadisay adigana aad bagaadii soo raadisay madaxweynaha aad u hambaliyay u ducaysay annana waa kuula ducaynayna maxamed maxamed waa gobonnimo kama nin wacan weeye gobonnimo ma aha ma buu fadhiisan abaariba dhacdo muu fadhiisan qof buu og yahay dadka qof wardee sanadka wax badan baa la ogaaday wax badan sanadkan maanta wax badan baa inaad la ogaad taariikhda xusi doonta hayya waryaalahan waxaanu intaa ku soo gabagabaynayna shirkeygii jira shir jaraa'id ma aha aan kula leenay misaada deeada watay laakiin leena haystee waad igu timaadeen dir baa hay qabsanina ma yeenaad waa iska wada leenahay dee waa iska caadiye aad nagu martay anaga naga martigeliyay idinka martigeliyay kowli laakiin mar walba hay soo doonanina ilaa marmar baan sir gaar leeyahay markaa inaad xagga la hadlaysaa sir gaar leedahay mid ummadda ka hadleen iyo waa ka hadlaya maxaa idinku macnihiin dee waa kaala hadlaynaa adiguna waad mahadsanta laakiin amrana waynu eeganaynaa dee meeshuu joogaba xagga ay eegataan see eegataan dee waxaan ku eeganaynaa sawda ummadda kulama lihiin inaade يا خلدميا يا ولاد روح والله دحي كلام أنا كله شوق نو يروح حتى ورقة يصير ثلاث كقبر يا مريا تليفون مريدي تليفون ها هنا هذا تليفون ما لا هنا أنت هلا بتليفون لا ويلا ده عصري على الصعدة عصري بقى وتقول هذا فيسبوك ملاه ما إلى الفيسبوك مليه هنا هذا الفيسبوك ما وحبا يقول ساكن فيسبوك ورا بدن بقى يقول ساكن يا لو هذا فيسبوك لهي انت الراديو والله إنك هنا كل ما هجاك سنة سميسوين هذا الفيسبوك وهي سميسو طلع انتو يقولك عيا حبا العق بدل ما هذا التليفون بالله انت لقيت التليفون لا واي وخلاص صح جيري عصري قدام بي واي هذه واي صلان همبليو هنا همبليو واي هي ساسي نوت واي هنا أرض الديلة أنا ماشي فديي واي وتجينا ما يدين هاري ما يحبنا ما هاري سولو هذا سولو هذا اللي كانوا ويدا بس عضاهم ما الله عليه ماشي أنت ويدا بتاعي تغيرني ويدا بتاعي أنت والله لكن ما تسمع لك سميه هذاش والله هو حوين بيك هذاش ويدا بتاعي أنت ما نبغى والله وحين قبيضة ورياله يسوى شيء ورتي بارس ما كحول ما نيتير تي بي أرس ما يقول حلال ملايو waxaan maxay ugu soo ogaanay dadkan maxay ugu soo ogaanay horta ka dheer waxaan leeyahay GB Aris ma igu xidhan hay igu xidhnaado